shalay magaalada Huurshe ee dhacda waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa gaaray guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Guddigaas waxay kulamo la qaateen waxgaradka siyaasiyiinta iyo sidoo kale maamulka magaalada Huurshe, waxayna kala hadleen arrinta la xiriirta shirkaasi dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dhismaha maamulka Galmudug. aniga oo xildhibaan Cabdinuur Sheekh Ismaaciil Aadan guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Maxamed Sabriye ayaa noogu yimid degmada Huurshe oo uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Cabdiraxmaan Baadiyow. waa soo dhaweynay, waa qaabilnay, waa wada hadalnay, waa heshiinay. waxa weeye waxaana insha Allah aan aqbalnay in aan gogasha dib u heshiisiinta Galmudug looga hadlayo Dhuusamareeb aan tagno haddii Ilaahay idmo. beelaha Galmudug daga dhammaantoodna waxaan ugu baaqaynaa gogashaas lagu wada hadlayo oo lagu heshiinayo oo dawladda Galmudug haddii Allah idmo lagu dhisanayo inaan ka soo wada qayb galno iskugu nimaadno. annaguna waa aqbalnay gogasha Dhuusamareeb ka fisan. waa aqbalnay guddigu wuxuu noo keenay, shirkii uu noo keenay, arrimihii uu noo keenay waa aqbalnay. waan ilaahayna baa mahad iskale, waan u mahad celinaynaa. waxaan ku baaqaynaa beelaha kale oo Galmudug oo dhan inay shirka saas oo kale u aqbalaan, inay u soo hoggaansamaan, inay dib u heshiisiinta ka qayb galaan, inay shirka ka qayb galaan. arrintaas oo dhan muxuu ahaayey inay kulligood saas ugu sharfaan guddiga iyo muxuu ahaayey dadka islaamka ah oo soo dhibaatooda noo soo dhibaataaday inay u mahad celiyaan, arrimahoodana aqbalaan, kuna soo dhaweeyaan baan ugu baaqaynaa iyagana. guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo gogashiisu ay taalo Dhuusamareeb ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay socdaal ku marayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan waqooyigiisa, waxa ayna Huurshe ka mid tahay meelihii ay guddigaasi gaareen. hadda guddiga waxa uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaas oo maanta gelinka hore uu gaaray.